ardaydan ayaa ololahooda dhaqaybineed waxay ka fuliyeen 5 dugsi sare oo ku yaala magaalada Hargeysa kuwaas oo kala ahaa dugsiyada Deebguray, Waran Cadde, Future, Arshaad iyo dugsiga sare ee Qulaadan. Ololahan ay saaka fuliyeen naadiga ilaalinta deegaanka ee Eco-Club ee kulliyadda beeraha iyo deegaanka jaamacadda Gulis ayaa qayb ka ah ololaha dhiraynta dugsiyada oo ay wadeen muddooyinkii ugu dambeeyay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland. Dhirta saaka la qaybiyay ayaa isugu jirtay noocyada dhirta manaafacaadka iyo har kale waxaana ka hadlay qaybintoodii gudoomiyaha naadiga Eco-Club ee kulliyadda beeraha iyo deegaanka jaamacadda Gulis Maxamed Cabdi Cabdilaahi iyo hormuudka kulliyaddaasi Ahmed Ibrahim waxaana ka warameen waxyaabaha ku dhaliyay inay ololahan dhaqaybineed ka fuliyaan qaar ka mid ah dugsiyada magaalada Hargeysa. sidoo kale waxaan doonaynaa kaga faa'iideysano maadaama roobkii bilaamay maadaama abaartii Ilaahay naga soo furtay inaynu ka hortagno xaalufinta deegaankeena lagu hayo oo sanadadii dambe aad u saabadanaysay sida awgeed waxaanu maanta bilownay dhaqaymintii feeskii ugu horeeyay gobolkan Maroodijeex waxaanu ku bilnay iskuulo tirado 10 iskuulo tirado gaadhay 10 iskuul dhirtan totalkooda waxa weeyaan 150 geed weeyaan ayaan doonaynaa kala u qaybino waana dhir kala duwan oo isku jirta dhir qurux iyo dhir hadh iyo dhir sidoo hadh iyo manfac leh. runtii maanta anagu campaign waxaan wadnay xagga deegaanka oo horumarinta deegaanka dhirtii deegaanka dib badan baa soo wajahda dhirtii oo si yaraanaysa iyadoo dhuxulaysi badan jiro iyadoo deegaankii waxa weeye baaba badan ku jiro xaaluf badan jiro arintaas waxay nagu dhalisay bal inaanu fikirka dadka bedelo halka laga bedeli karaana waa in iskuulada iyo sekondariyada la maraa marka anagu waxaanu isleenahay bal jiilkan maanta taaganayaan ka naxayn dhirtii iyo deegaankii jiil ka duwan oo waxa weeye ka naxa oo ka damqada oo runtii waxa weeye arinta ka dayriyo mustaqbalkana wax ka qabtay in la soo saaro maamulayaasha dugsiyada Qulaadan, Deebguray, Future, Arshaad iyo Waran Cadde ayaa soo dhaweeyay ololahan dhaqaybineed ee ardaydu ay ka fuliyeen dugsiyadooda waxaana ballan qaadeen inay daryeeli doonaan dhirtan si mustaqbalka u anfacaan dugsiyadooda. Sidoo kale qaar ka mid ah ardayda wax ka bartay dugsiyada ololahan laga fuliyay ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhirtan waxaana ay geestooda hoosta ka xariiqeen sida ay uga go'an tahay ilaalinta daryeelka iyo ka warhaynta dhirtaasi.